ciidamada amniga Puntland sida gaarka u tababaran BSF ayaa agab waxbarasho waxa ay gaarsiiyeen degmada Dhudhub ee gobolka Karkar. Kolonyo ka tirsan ciidamada BSF oo wada agab waxbarasho kan ama baxay xaruntooda magaalada Boosaaso ayaa waxa ay gaareen degmada Dhudhub ee gobolka Karkar, waxaana agabkii waxbarasho ay wadeen ay ku wareejiyeen maamulka degmada. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ciidamada BSF gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Cali Xirsi oo faahfaahin ka bixiyay agabkan waxbarasho ee degmada Dhudhub ay soo gaarsiiyeen ciidamada BSF oo uu madax u yahay General Asad Usman Cabdullaahi ayaa sheegay keenista agabkan waxbarasho ay ka dambeysay kadib codsi ugu yimid maamulka degmada Dhudhub oo ku aadan inay degmada ka jirto baahi ku aadan agab waxbarasho oo markaas la doonayay in lagu qalabeeyo dugsi sare dhawaan laga hirgeliyay degmadaasi. waxaana agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Cali Xirsi uu sheegay in codsigii maamulka degmada Dhudhub ay u soo gudbiyeen agaasimaha guud ciidamada BSF General Asad Usman Cabdullaahi uu si degdeg ah ugu soo jawaabay isla markaasna agabkii codsan ku wareejiyay agabayntii baanu kanay qalabkii materialka wax lagu baranayay waastii iyo miisaskii oo dadka ciidanka BSF wuxuu ku hawlan yahay difaaca dalka iyo inuu xajiinta iyo xumahaba ka tiro dhammaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada Puntland. alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa hilkii ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya nooga taqaanay caadada noo haylaayna nagu galaday. annana waxaanu ka soo jawaabnay markii mas'uuliyiinta ugu horeeyo iyo odayaasha وهو دوق دغمدو ماير علي ونا soo gaarsiiyay dugsigii sare maadaama gacanta laga jaray anagoo marba og sida dalka wax ka yihiin iyo inaanu gufayno hadba meeshaan wax ka qaban karayno runtii dhaantii idinka timi iyo dadaalkii aan u galay darteed inaanu shalay u soo kicitnay safar dheer noo soo galay inaanu keenno agabka noocaasa ee wanaagsan sida darteed inaad nagala wareegtaan ayaanu aad ugu faraxsanahay. gudoomiyaha degmada Dhudhub iyo gudoonka waxbarashada degmada oo agabkan waxbarasho ay soo gaarsiiyeen ciidamada BSF la wareegay ayaa si wada jir ah waxay ugu mahadceliyeen General Asad Usman Cabdullaahi agaasimaha guud ciidamada BSF oo codsigooda si degdeg ah ugu soo jawaabay. ciidamada SF oo xooga dalka ah oo markastaba difaaca u taagan iyo dalkooda inay difaacaan haddana waxa weeyaan kuna daray anaa waxa weeyaan arrimaha bulshada iyo hawlahooda iyo inay waxa weeyaan waxbarashada iyo meel kasto waxa weeyaan ka jiddo arrimaha bulsho inay horumariyaan waxaan ugu tagnay anaa waxa weeyaan tasalligooda ama waxa weeyaan meelaha ay waxa ay joogaan xarumahooda codsi baanu gaarsiinay mar haddii waxa weeyaan degmada Dhudhub iskool sare loo sameeyay إن الله قلبه يو سيدك دقة وادي عليه بيوجه وابين سراكيشة ودي وحوي إذا مضى ما هو قم هالعلينا جنرال وأسد وحوي مضح كأنا سيادي هذا قم هالعلينا كان سيد لسان إذا مضى بيس وقامنا يوتليا أسد اسمان عبد الله وعلى كان كيقولوني agabkii waxbarasho sare degmada Dhudhub iyagoo wax badan iyo qafara badan oo geystay meelo badan oo deegaamada ka mid ah sida taakuleenta aqoonta oo kale dhiraynta magaalooyinka iyo bilicda aad iyo aad baan soo dhaweynay. sanadii ugu dambeeyay ciidamada BSF waxa sugidda amniga ay ku dareen inay bulshada ka caawiyaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyo kale oo markaas nolosha asaasiga